سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج كني عيارها وان كسو قادان دونو قدبا آدو حيسا بادان سيدا اسبربردك اينو كسامين دونو لبدا معلم ايكالا ارسينا فينغر ايا سيدو كالي معلم يوناي امري حقيقة دا او دينع كستيتابا كوتي الماميسا وحا او يحي فينغر iyo waxa uu galo Unai Emery Real Madrid oo dhankeedana diyaar u ah in ay siisan laba kamida ciyaartooydooda kooxda Tottenham si ay u helaan Christian Eriksen sidoo kale barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa jamaahiirta Liverpool oo dhinac kasteetaba iyagana ku maadaysanaya labada kooxood ee kala ah Arsenal iyo Manchester United waxaana u sababa qaab ciyaareedkooda aan sidaasi u wacnayn sidoo kale barnaamijkeena intuu hawada ka baxayo waxaan ku qaadaa dhigi doonaa halyaygii reer Afrika iyo kooxda Chelsea Didier Drogba oo dhinac kasteetaba tilmaamay labada xidig ee mudan ku guuleysiga abaalmarinta Ballon d'Or kuwaasi oo ah kuwa ka wada tirsan kooxda Liverpool Luka Modric oo dhankiisana cadeeyay laacibka kula tartami doona laacibinta kala ah Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo si lamida Virgil van Dijk ku guuleysiga abaalmarinta Ballon d'Or qodobada iyo kuwa kale aad u xiiso badan ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan inta uu hawada ka baxayo ugu horay haddii aad nagu cusub tahay subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya halkani waa Toledo Journal ku bilaabanne reer Arsenal waad maagteen macallim Arsene Wenger laakiin qalad ayay ahayd oo maxaa yeelay wuxuu ahaa halyay idiisoo halgamay diyaarna u ahaa in kooxda uu la gaaro guulo kale oo waaweyn ah inkastoo kooxda Arsenal ay ku adkayd inay bixiso lacagaha waqtigii uu hogaaminayay macallim Arsene Wenger hase yeeshee haatan diyaar ay u tahay inay kaato macallim Unai Emery haddana waxaynu eegaynaa kooxdan qarashaadka badan lagu bixiyay ee Emery uu hogaamiyo iyo midii uu watay macallim Arsene Wenger haddaba waxaynu isbarbardhig guud ku sameynaynaa 47 kulan ee ugu horeysay macallim Unai Emery iyo 47 kulan ee ugu dambeysay macallim Arsene Wenger wuxuu awooday in kooxda uu la gaaro 26 gool macallim Unai Emery isagana 47 kulan ee ugu horeysay kooxda Arsenal wuxuu awooday in uu u soo xareeyo 26 gool halkaasi waa lagu garaacay Emery sidoo kale 90 gool ay dhaliyeen kooxdii uu watay macallim Arsene Wenger 47 kulan ee ugu dambeysay kooxda Arsenal macallim Unai Emery kooxda uu watana 47 kulan ee ugu horeysay Arsenal waxay awooday in shabaqada ay soo taabato 86 jeer halkaasi mar kale ayaa lagu garaacay haddana kooxda uu watay Arsene Wenger waxaa awood loo yeeshay in shabaqadeeda la soo taabto 59 jeer halka kooxda Unai Emeryna la awooday in shabaqadeeda la gaaro 63 jeer mar kale dhinaciisa dhulka la dhigay kooxda Wenger waxay awoodeen in shabaqadooda ay ilaashadaan 17 kulan hase yeeshee tii Unai Emery ooba u jilicsan guuldarada ama goolkeeda in la taabto waxay awood u yeelatay 47 kulan ee ugu horeysay 10 jeer taasi oo ku tilmaamaysa in dhinac kasteetaba kooxda Arsenal marka la fiiriyo 47 kulan ee ugu horeysay macallim Unai Emery iyo tii ugu dambeysay ee macallim Arsene Wenger in dhinac kasteetaba ay ku wanaagsanayd midii Arsene Wenger halyaygaad xumayseen reer Arsenal hal maris ayuu idiga rabaa waqti xaadirka kan wuxuuna la haawinayaa shaqo la'aan sidoo kale kooxda Liverpool ee ka dhisan gobolka Merseyside iyadana waxay si wada jira u ceebaysatay labada kooxood ee kala ah Manchester United iyo sidoo kale kooxda Arsenal oo maxaa yeelay inkastoo toddobaadkii sagaalaad kooxda Liverpool barbadhac gool iyo gool ah ay kala kulantay dhigeeda Manchester United haddana weli waxay awood u yeelatay in ay soo xaraysato dhibco gaaraya 25 dhibcood laakiin labada kooxood ee kala ah Manchester United iyo Arsenal ayaa isku darka dhibcooda waxay noqdeen 25 dhibcood oo Arsenal ayaa awood u yeelatay inay hesho 15 dhibcood halka Manchester Unitedna ay heshay 10 dhibcood sidaas darteed jamaahiirta kooxda Liverpool ayaa si weyn kaga maadaysanaya caalamkan waxa ku dhacaya kooxaha Arsenal iyo Manchester United
oo noqday kuwa aad daciif u ah marka la fiirayo xilli ciyaareedkan. dhinac kasteetana Liverpool ayaa weli u sii jihaysanaysa sidii ay ku xaqiijisan lahayd hoggaanka kala saraynta ee Premier League dalka Ingiriiska, iyada ayaana ka talinaysa waqti xaadirka kan. sidoo kale halyaygii hore ee kooxda Arsenal isagana wuxuu waxwaayahu ka soo saaray labada ciyaartooy ee kala ah Fred iyo McTominay oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa aan awoodi karin ama aanan garanayn sida loo ciyaaro banooniga ama loo paaso. dhinac kasteetana wuxuu tilmaamay in macalin Ole Gunnar Solskjaer weli uu iska dadayayo shaxda Jose Mourinho. isagoo ka hadlayay arrimahaasina waxa uu yidhi kulankan waa mid kale oo ku adag Manchester United. kooxda waxay u ciyaartay sidii Jose Mourinho kulankii Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer wuxuu doonayaa in saxdiisa uu ku soo celiyo 4 difaaca, laakiin qadka dhexe ee Man United ma haysan karaan banooniga. Scott McTominay iyo Fred ma dhiibi karaan baas, ayuu yidhi. dhinac kasteetaba Nicholas oo dhulka la dhacay dhinac kasteetaba ciyaartooyda kooxda Manchester United ka hor inta aysan ciyaarin kulanka Europa League. sidoo kale laacibka difaacanaya ku guulaysiga abaalmarinta Ballon d'Or ee Luka Modric oo sanadanna iska dhaxwaayay ayaa dhinac kasteetaba wuxuu sii ishaaray ciyaaryahanka kula dagaalamay kara abaalmarintan. saddexda laacib ee kala ah Lionel Andres, Leo Messi, Cristiano Ronaldo iyo Virgil van Dijk. dhinac kasteetana wuxuu ishaaray inuu yahay Mohamed Salah isagoo la hadlayay jariirada bixisa abaalmarintan ee France Football. waxaana uu yidhi waxaan u malaynayaa inuu noqon doono tartan adag, laakiin waxaa abaalmarinta ku tartami doona xidigaha kala ah Mo Salah, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo iyo Virgil van Dijk. wuxuu intaasi ku sii daray Mohamed Salah wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah sanadadii ugu dambeeyey. waa xidiga ugu cadcad ee xidigaha kala ah Ronaldo, Messi iyo Van Dijk kula tartami kara abaalmarintan. waxaan dhammaan u rajaynayaa xidigaha nasiib wacan, ayuuna yidhi Luka Modric oo sanadii horeeta ku guulaystay laakiin sanadan aanan ka qayb noqon 30 ciyaartay ee u tartamaya abaalmarintan ka gadaal markii kooxdiisa Real Madrid iyo xulkiisaba uu ku soo bandhigi waayay qaab ciyaareed aan sidaasi u qurux badnayn. sidoo kale kooxda Real Madridna ugu dambeyntii waxay banaanka soo dhigtay galgacaylka iyo jacaylka ay u qabto laacibka xulka qaranka Denmark iyo sidoo kale kooxda Tottenham ee Christian Eriksen, waxaana ay diyaar u yihiin marka uu furmo suuqa January in kooxda Tottenham ay gacanta u geliyaan 2 ciyaartooy si ay u helaan Christian Eriksen, kuwaasi oo kala noqonaya Francisco Isco oo ahaa laacibkii wacdaraha ka dhigi jiray garoonka Santiago Bernabeu iyo laacibka aanan haysan dooqa koobaad ee macalin Zinedine Zidane, Mariano Diaz. dhinac kasteetaba laacibka reer Denmark ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahaa kooxda Real Madrid tan iyo suuqii hore, laakiin sheekadaasi waa ay ka fashilmatay. January-na waxaa macquul ah in Zinedine Zidane sida ugu dhaqsiyaha badan ugu dhaqaaqi doono Christian Eriksen maadaama uu u baahan yahay in qadkiisa dhexe uu ku xoojisto. dhinaca kale xidigaha kooxda Liverpool ee kala ah Sadio Mane iyo Mohamed Salah ayaad moodaa kuwa qabsaday warbaahinada kala duwan. haatanna halyaygii hore ee kooxda Chelsea iyo xulka Ivory Coast Didier Drogba ayaa dhinac kasteetaba tilmaamay abaalmarintan ay bixiso France Football ee Ballon d'Or oona ah midda ugu qiimaha badan caalamkan inuu u saadaalinayo inay ku guulaysan doonaan labada xidig ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee kala ah Mohamed Salah iyo Sadio Mane, kuwaasi oo ka wada tirsan kooxda Liverpool kuna hogaamiyay ku guulaysiga Champions League. Didier Drogba oo la hadlayayna wargeyska L'Equipe waxa uu yidhi waxa aan dooranayaa Mohamed Salah iyo Sadio Mane oo aan jeclahay. inkastoo uu Mane ku guulaysan koobka qaaradda Afrika, wuxuu ku guulaystay Champions League waxaana uu soo bandhigay qaab ciyaareed fiican. waxaa run ah in ay jiraan xidiga fiican oo u sharaxan abaalmarintan sida xidiga Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, laakiin waa in aynu qiimeynaa qaab ciyaareedka xidigaha ka hor inta aynu go'aan gaarin. aniga ahaan Mane waa qof degan sida N'Golo Kante, waxaana uu leeyahay tayo cajiib ah, waxaana uu gaaray finaalka Champions League 2 sano oo ugu dambeysay, waana xidig muhiim ka ah
kooxda Liverpool ayuu dhinac kasteetaba tilmaamay halyaygii hore ee kooxda Chelsea Didier Drogba oo isna soo dhaxgalay xasaladda xoogan ee taagan ee ku qotonta abaalmarinta Ballon d'Or oo dhinac kasteetana wuxuu tilmaamay in midkood uu mudan yahay Mohamed Salah ama Sadio Mane siiba marka loo fiiriyo laacibka reer Senegal ee Sadio Mane oo baryaha noqday hogaamiyaha guud ee kooxda Liverpool kana dhisan ciidii Anfield Road. guud ahaan barnaamijkani ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman saaxiibayaal wanaga inta aan ku kulmi doono barnaamij la mid ah.